ku sugannahay xeebta Batalaale ee magaalada Berbera, taasoo aan ugu talagalnay inaanu saaka olole nadaafadeed oo xeebta ah ka sameyno goobtan aan ku sugannahay. Tababar muddooyinkii ugu dambeeyay nooga socday magaalada Berbera oo gaar ahaan xoogga diiradda lagu saarayay sidii loo kobcin lahaa aqoonta iyo ilaalinta deegaan badeedka, iyo sidoo kale sidii qayb looga noqon lahaa dadaallada muhiimka ay tahay goobaha xeebaha gaar ahaan magaalada Berbera iyo xeebta Batalaalaba. Ficilaadka muhiimka ah ee tahay in lagu nadiifiyo qayb ka tahay. Maanta goobtan waxaanu ka sameyn doonaa olole nadaafadeed kaasoo xoogga lagu saarayo sidii uu qayb uga noqon lahaa ilaalinta baddeena, xeebteena. Sidoo kale nadiifinta maanta aan sameynayno waxaanu iska kaashanay haddaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo dowladda hoose ee degmada Berbera, taasoo iyaduna dadaallo la taaban karo ka haysta horumarka degmada. Ololaha nadaafadda waxaanu ku nadiifin doonaa qashinka dadka dalxiisayaasha ah ee maalin walba imanaya xeebteena quruxda badan leh. Qaarkood iskuma wada jiraan ay ku tuuraan, kaasoo iminka sida halkan ku arkaysaanba waxa ugu badan uu yahay qashinka halkan dadku la yimaadaan bac iyo caagad, taasoo markaa ololaha nadaafadda aan saaka ku nadiifin doono xeebteena. Aynu taageerno ololaha nadiifinta xeebteena. Waxaanan fariin u diraynaa muwaadiniinta kala duwan ee isaga soo kala goosho gobollada dalka, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee maalmaha wiigu dhammaanayo usoo dalxiis taga magaalo xeebeedka Berbera iyo xeebteena Batalaale, taasoo ay ku qaataan jawi beddelasho, farxad iyo inay kusoo dabaashaanba. Muwaadin, qayb ka noqo nadaafadda xeebteena oo qashinka goobaha loogu talagalay ku diyaarisay degmada Berbera dowladdeeda hoose ee dustbinada loogu talagalay ama goobaha qashinka in lagu rido loogu talagalay ku rid. Muwaadin, qayb nagala noqo ololaha nadaafadda xeebteena, qayb ka noqo nadiifinta xeebteena. Sidoo kale taageer wacyigelinta bulshadeena loogu talagalay in qashinka gaar ahaan noocyada caaga iyo balaastigga ah, caagadaha iyo bacaha maalmaha dalxiisayaasha faraha badan leh ku qubaan ama la yimaadaan halkan, in sida ugu wanaagsan aad u basriso oo goobta loogu talagalay iyo shaqaalaha ku hawlan aad kala shaqeyso. Waxaan halkan maanta aynu ku soo gabagabeynay 2 tababar kii dambe oo ah ku saabsanaa deegaanka badda, si dhalinyaradu ay focus ugu sameeyaan deegaanka badda. Aynu ku soo qaadanay ama arrimaha dadka kala duwan iyo arrimaha bulshada kala duwan. Waxaan maanta halkan u joognaa oo kale inaynu maanta nadaafaddii badda aynu ka shaqeynayno, inagoo bulshada tusayna in had iyo jeer waxa halkan wasakh ku ahi ay tahay bacaha iyo caagadaha biyaha. Marka waxaan halkan runtii aan ka soo jeedinayaa bulshada la wadaagaya arrintan maanta halkan 2 cisho u fadhinay waxay ahayd casharro aad iyo aad u qiimo leh oo maanta halkan aynu ku arkayno buuxa. Waxaan ka go'nay waa 50 mitir oo square. Haddii waa 50 mitir square ka go'nay wadarkaysa markaa baaxadda ay leedahay in qashin badan badda u gelayo. Si taa u badbaadin waxaan bulshada dadka dalxiiska u imanaya magaalada Berbera waa dalkiini, waa deked, waa baddiina, waa ilaaliya bulshada ama deegaanka bulshada gobolka saaxil, gaar ahaan degmada Berbera. Dhalinyaradeeda lagu tababarayay runtii u doodidda deegaanka, gaar ahaan deegaan badeedka. Runtii waa arrin aad u qurux badan markaad eegto bulshadeennii, gaar ahaan gobolka saaxil, deegaanka ku baraarugsan ilaalinta deegaanka badda, xeebaha iyo runtii kor u qaadidda wacyigelinta deegaanka. maanta runtii mashruucan UNDP wasaaradda kala shaqeynayso
ayay u dambeysay in la sameeyo nadiifinta xeebta Batalaale mashruucaas runtii guud ahaan mashaariicda wasaaradda deegaanka la wada hay'adda UNDP runtii waxyaabo waaweyn oo aad u fiican oo deegaanka Soomaaliya wax ka taraya ayay la qabataa wasaaradda deegaanka aad bay ugu mahadnaqaysaa hay'adda UNDP iyo hay'adaha kale kala shaqeeya deegaanka wacyigelinta guud ayaan kala simanahay odayaasha in runtii deegaankeena la ilaaliyo xeebaheena la ilaaliyo loo hoggaansamo wacyigelinaha ka soo baxaya dowladda hoose ee Berbera wasaaradda deegaanka iyo hay'adaha kale ku hawlan ilaalinta deegaanka iyo daryeelkiisa waa muhiim inaynu ilaalino deegaankeena madax ahaan iyo ilaa maja ahaan inaynu deegaankeena ilaalino waa mid muhiima waxaa runtii iyadana aad muhiim inaynu baranno waxyaabaha dhaawacaya deegaankeena iyo waxyaabaha runtii wax ku soo kordhinaya arrintaasna waa arrin aad u muhiima runtii guud ahaan Soomaaliland markaad eegto 12 sano ugu dambeeyay wacyiga deegaanka waa soo kordhay waxaa muhiim ah runtii inaynu halka ka sii qaadno bulsho ahaan ilaalinta deegaankeena shirkeennii iyo tababarkeennii 4 cisho qaadanayay saas inuu soo xirmay